madaxweynaha dowlad goboleedka Qaatimo mudane Professor Cali Khaliif Galeed ayaa weli ku sugan gobolka Sool qaybo kamid ah siiba deegaanka Saacdheer isagoo halkaasina shiro kula leh qaybaha kala duwan ee bulshada deegaankaasi isagoo madaxweynuhuna booqanaya jiidaha kala duwan ee gobolkaasi iyo weliba qaybaha kala duwan ee deegaanadaasi safar dheerna ku maraya guud ahaanba qaybo badan oo kamid ah gobolkaasi Sool safarka madaxweynaha ayaan ilaa hadda wax faahfaahin ka soo bixin kadib markuu in muddo ku sugnaa qaybo kamid ah gobolka Cayn iyo weliba deegaamo hoostaga madaxweynaha ayaa taliyo deegaanka Balcad maalintii uu ka dhacay weerarku waxa uu waday abaabul xooggan oo ka dhan ah sidii wadanka looga saari lahaa maleeshiyaadka deegaankaasi Hargeysa laga soo abaabulay iyaguna beenta weyn mid dhigooda ah yey buuhood la ka sheegaan ayaan dhaweyd waxayba u yimaadeen wada ay shuqul عدنا ونقلانيني هلا ذيك اللهو وهذا بنتي ومسكوك والزيرو هكياني كابحين عدنا ونقلانيني هلا ذيك اللهو وهذا بنتي ومسكوك والزيرو هكياني كابحين راعنا واشيلي هكتجن هبسينا ذا إن راعنا واشيلي هكتجن هبسينا ذا إن راعنا واشيلي هكتجن هبسينا ذا